gudida abaaraha jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku wareejiyay gobolada bariga Somaliland gaadiid sidee raashin gaaraya 8,000 oo qoys. Wareejinta raashinka ay goobjoogayaal ka hayeen barsaabada gobolada bariga Somaliland ayaa ugu horeyntiiba waxa warbixin ka siiyay gudoomiyaha abaaraha heer qaran ee gobolada bariga Somaliland Sheekh Awil Faatax waxaana uu yiri sida waxa halkan lagu wareejinayaa qayb kamid ah raashimadii ee loogu talagalay gobolada bariga. waxa saaka halkan taagan qayb kamid ah qaybihii raashinka loo diri lahaa oo ilaa 8,000 oo qoys ah. waxa gobolada maanta raashinka la gaarsiinayo ay yihiin Togdheer iyo Buuhoodle iyo Daadmareed iyo Haysimo iyo Sool iyo Saraar iyo Sanaag galbeedkiisa iyo barigiisa. waxa kale oo halkaas ka hadlay erayada daarana ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dawladda Somaliland. waa digniin quraanka ah waa tilmaan rabbaaniya in khalqiga uu abuurtay ay soo marayaan mashaakil fara badan oo ay ugu sii khatar badan tahay ta haddayna soo martay oo dad iyo dunyaba taabatay. waxa markaa inala gudboon meeshii la isugu yimaado majmacada in la badiyo kelimada waqtigaas markuu taagan yahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. cid kale oo abiil loo qoran karaa ma jirto. Ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna gudoomiyaha gudida abaaraha heer gobol barasaabka gobolka Sool Mustafa Shiine iyo barasaabka gobolka Haysimo ayaa iyaguna barnaamij ballaaran u diray gudida abaaraha gobolada bariga Somaliland oo ay ugu mahadnaqeen qaabka ay ugu shaqeynayaan dadka abaaruhu saameeyeen. Sakariya Cabdiraxmaan Ibraahim Hargeysa Price magaalada Burco ee xarunta